dhegaystayaasheenna qiimaha iyo qaayaha lahow halka aad naga dhegaysanaysaan waa Radio 1 Soomaaliya oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha dhererkeedu uu kala yahay AM 1540 iyo mawjada kale oo dhererkeedu uu yahay 91.9 FM iyo abka Jin Radio. waxaa barnaamijyadan idiin soo gudbinaya anigoo ah Muuse Kuulow, Xuseen Nuur Xaaji iyo Yaasiin Abiikar. waxaan idin leenahay habeen wanaagsan. ramadaan kariim dhegaystayaal halkaad nagala socotaan waa Radio 1 Soomaaliya. hadduu ay bakar raalli noqdo intaan ku guda jirno idaacaddeenna waxaad maqli doontaan muxaadaro diiniya oo ku saabsan ramadaanka, sidoo kale wararkii Soomaaliya iyo waxyaabaha ka cusub dunida. marka hore se aan ku daahfuranno barnaamijkeenna aayadaha qur-aanka kariimka oo inoo akhriyo Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. waxaa intaasi noogu dhammaaday aayadihii qur-aanka kariimka oo inoo akhrinayay Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi. ramadaan kariim dhammaantiin. haddana waxaad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee cashirka diiniga ahaa ee ku saabsanaa ramadaanka oo inoo akhriyo Sheekh Mustafa Haruun. ku soo dhawaada. bismillaahi raxmaan raxiim. alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah. unugyo cusub baa dhasha, markaa qofku renewal caafimaad buu ka qaadaa. walidaalik baa maanta miisaankaa dhinma, kanbaa dhaca xanuuno badan bay ku daweeyaan, ilaa ay xanuuno psychotica ku daweeyaan maanta oo loo isticmaalo in qof 36 maalmood ama wax ku dhodhow la soomiyo igti'aabiyada iyo xanuunada qaarkood in lagaga daweeyo. maanta dad badani waxay u soomaan inay jidh qurux badan yeeshaan. dadka qaar waxay u soomaan in wasniga iyo miisaanka iska yareeyaan. dadka qaarkood waxay u soomaan lilidiraab, dowladda iyo wixii laga cabanayay in xabsiyada iyo meelahaas oo kale in cunnada laga soomo, idiraab iyadoo ah. laakiin waxaynu isweydiinaynaa qofka muslimka ahi maxaa asale uu soomaa? waxani waa tabac, yacni inaad caafimaad hesho ama inaad kan heshaa maaha asalkii soonka. asalka soonku waa maxay? yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kama kutiba cala aladiina min qablikum lacallakum tattaquun baa ilaah yidhi. kuwa iimaanka laga helayow, soom baa laydinku waajib yeelay sidii ummadihii idinka horreeyaba loogu waajib yeelay. cibaadaadka qaarkood waa qadiim, mundu qidami zamaan, intii umamku cibaadaad la wada faray baa jira. hayaakil alcibaada oo kayfiyaatiha baa kala gedisnaatay. مثلا صلاة وعبادة قديمة، صومك وعبادة قديمة، حجك وعبادة قديمة. والله يا بقاب كلو جدنا يا من لو سميني إنك لقى قديسيهين. نبي كست تشريعي لسوسي إنه كقديسي لكن أصول العبادة أركان الإسلام كلا يدعين طبعا وعبادات قديمة وقرآن كينات المامية. صومك إلهي وحنا لي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. صوم بالله واجب عليه. sidii loogu waajib yeelay kuwii idinka horreeyay. maxaa laynoogu waajib yeelay? ma ciqaab ah oo inta layna ciqaabaaba dembiga laynagaga maydhaya miya? maya. ilaahay aayadka dambe wuxuu leeyahy yuriidu allahu bikum اlyusra walaa yuriidu bikum اlcusra. ilaahay wuxuu idinla rabaa inuu noloshaba idin fudaydiyo. soonkaba waxaa laydin faray in noloshu idin fududaata baa la leeyahy. culaysna rabbi idinlama rabo. idan soomka culays kuma jiro haddii sidii sharcigu uu sheegay loo samaynayo. waxaa ilaahay ina farayaa sababta waa maxay? lacallakum tattaquun, ina mansilatu taqwa gaadhaan. aslu lcibaadaba mansilatu taqwa bay ku gaadhsiisaa. yaa ayuha annaasu icbuduu rabbakum aladii khalaqakum waladiina min qablikum lacallakum tattaquun baa ilaahay yidhi. wardadow rabbigiin caabuda, idinka idin abuuray iyo kuwii idinka horreeyeyba. maxaa u caabudaysaa? lacallakum tattaquun. kayta tattaquun. haddaba ayuha alaxiba waxaynu u baahanay ramadaan in loo diyaargaroobo. munaafiqiintii ka hadhay dagaalka ee dabeetana cudurdaarka nebiga ula yimi, dagaal maxaa la yidhaha tabuuk markii loo baxayey. tabuuk waa dowlad weyn baa dagaal lagala hortegayay oo dowladdii romanska iyo dadkii raacsnaaya. wakhtiguna wakhti kulul buu ahaa oo wakhtigan khaliijka 40 iyo 50 ka dhacaan, yacni wakhti samara xagaaya bay ahayd. dabeetana bil wakhti ku dhadhowna waa la lugaynayaa xagaaga.
marka raggii daacadda ay ka ahaydna way u diyaargaroobeen inay lugta iyo wuxuu fuuli lahaa iyo bishaa siduu socon lahaa. kuwii waxay fuulaan waayeen mu'miniinta ahaa waa kuwii nebiga u yimi iyagoo ooyo le ilaahay rasuulkiisa iyo waxna saar. ma haysano geel iyo farda iyo waxaanu fuulo toona ma haysano, inaanu kaa hadhnana ma rabna, waa kula dagaalgalaynaa ee waxaanu raacnana saar. qolaa jirtay munaafiqiin oo iyagu maadaama noloshu ay adkaatay, xagga kale marka laga eegana waa wakhtigaa timirtu bislaato oo beerahay lahaayeen carabtu wakhtigaasay u bislaataa. markaa nimankii munaafiqiintaha iyagu marmarsiiyay sameeyaano way hadheen. ilaahay oo qadiyaddooda ka warramayabaa wuxuu idhi walow araaduu lkhuruuja laa cadduu lahu cudda baa ilahay yidhi. hadday marka horeba iraada doonitaan hadduu jiray inay rabaan inay baxaan way u diyaargaroobi lahaayeen baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala. ee diyaar la-aantu waxa ay tilmaamaysaa inaanay rabin maxay inay baxaan. haddaba soomku ayuhalaxiba wuxuu inaga rabaa diyaargarow. wuxuu inaga rabaa diyaargarow ah inaynu u diyaargarowno mansiladii loogu talagalay qofka mu'minka ah soonku inay gaadhsiiso inayna gaadhsiiso. sida awgeed ayaa salafi lumma markay ramadaantu soo dhowaato waa ku farxi jireen. dee saan ugu farxinba qofka muslimka ahay rukun arkaantiisii diinta abaa ku soo socdee. soomay rumaysnin islaamkuba inuu 5 rukun ku tiirsan yahay. 5 asaloo waaweyn buu leeyihi. 5ta asal maxaa ka mid ahaa? shahaadada iyo salaad iyo zako iyo soon iyo xaj. idan rukun ka mida arkaanulislaamkii markuu soo socdo qofka mu'minkii wuu u diyaargaroobayaa. intaasi waxay nooga dhan muxaadaro diiniya oo ku saabsanayd ramadaanka oo inoo soo jeedinayey sheekh mustafa sheekh haaruun. hadduu eebba ka raalli noqdo inta aan ku guda jirno bishan barakaysan ee ramadaan, muxaadaradan ayaa waxay noqon doontaa mid joogto ah oo aan dhegaystayaasheenna usoo gudbin doonno hadduu eebba ka raalli noqdo. waxaynu weli bartamaha uga jirnaa barnaamijyadii ay idinkugu talagaleen radio 1. haddana waxaynu idinku wareejin doonaa walaalkay muuse adiga le waaye. maasha allah yaasiin iyo xuseen nuur xaaji waxaan idin leenahay mahadsanideen. runtii mar labaad waxaan idin leenahay rabadaan mubaarak, rabadaan kariim. runtii waxaan hadeertaan dhammaynay 7 cisho sida aan aaminsanahay. waxaa rabadaan ku bilowda bishii hadeertaan aan ku jirno ee muslimka ah maanta 7 markii 7 ahayd marka soonka waa inoo 7. waxaan idin leenahay meel kastoo aad joogtaan waxaan idin leenahay rabadaan mubaarak. sida caadada ahayd waxaa caawa stuudiya haddana mar labaad marti noogu ah oo aad wada barateen barnaamijkeeni gaarka ahaa afro mosaic health guide iyo qubaradeedii Beverly Jones. Beverly, welcome to Radio 1 again. What is our program tonight? Good afternoon, Moose. Thanks very much, and good afternoon to our listeners. Our program tonight is going to focus on men's health, and it's going to focus specifically on the prostate. Now, I likely will do 2 or 3 sessions about the prostate because it's quite an interesting and also detailed subject. So, in terms of the prostate, I mean, all men have prostate. So, the prostate is a gland, and apart from its reproductive functions, it plays a role in controlling the flow of urine by contracting and relaxing its muscle fibers. Now, sometimes the cells in the prostate change and they no longer grow or behave in a normal way. And these changes that happen with the prostate may lead to non-cancerous benign growths, or they may be precancerous, or they may be cancerous conditions. So a lot of men will know about the non-cancerous conditions such as prostatitis or what's called BPH, which stands for benign prostatic hyperplasia. And these precancerous conditions means that the cells are not yet cancer, but there's a high chance that the abnormal changes will become cancer. Now, I'm going to talk a little bit about the risk factor. And the risk factor is as men grow older, most often over the age of 65, as they grow older, the cells change, and that's when they may enter into a situation where they're either precancerous or cancerous. Now, unfortunately, men of African ancestry have a higher rate of prostate cancer at a younger age, and also the tumors tend to be more aggressive, and they're usually also diagnosed at a more advanced stage of the disease. Now,
there are a lot of reasons in terms of why this is happening, but certainly oftentimes it's thought that because black men tend not to go to their doctors and ask to be screened and tested, and so that's why it's diagnosed at a later stage. Now, what men should be aware of is if there's a family history of father or grandfather or uncle having prostate cancer, all the more reasons why they should be screened. Diet is also important. So a diet that is really high in fat and dairy. I mean, everyone knows about this. I mean, if you're eating a lot of fatty foods, then a lot of dairy products, and you're also eating a lot of red meat and processed meats. Those are contributing factors, and also being overweight is another contributing factor. Also, if a male person, as a young man, had inflammation of the prostate, prostatitis, then perhaps that's also a contributing factor. And the same again in terms of having a sedentary lifestyle, which comes back to the fact that exercise and diet's really important in leading a normal, healthy life. So in terms of early diagnosis, which is really, really important, if prostate cancer is detected and treated early, the chances of treatment are much better. Successful treatment, that is, are much better. So it's important to recognize the symptoms, and also important to get regular checkups, and these are the best ways of diagnosing prostate cancers early. So in terms of some of the symptoms, and today I'll do the early symptoms, and there are also later symptoms. So a symptom is what someone is experiencing. Someone can't tell you that this is what you're feeling. It's what the person is actually feeling. And prostate cancer may not cause any signs and symptoms in its early stage, since it's really a slow-growing cancer. And this is what is important. It's slow-growing. So if it's caught early, then it can be successfully treated. But if it's caught only when it's in its advanced stage, then the treatment is likely to be less successful. So the symptoms appear when the tumors become bigger, when the tumor or the prostate becomes bigger, or it grows into the surrounding tissues and organs. So early symptoms may be changes in bladder habits, and the changes may be the need to urinate more often, especially at night. And then there's an urgency, which means that it's an intense need to urinate all the time. And there may also be difficulty in starting or stopping the urine flow. It's also possible that the man may be unable to urinate, or while he's urinating, the stream of urine may be really weak or totally decreased. Or he may have an interrupted urine stream, or a sense that the bladder is not completely empty, or there may be burning or pain during the urination, or there may be blood in the urine or the semen. And sometimes, too, there could be painful ejaculation. So I will stop at that today. And then next week I will talk about the later signs and symptoms, because they're actually different from the early signs and symptoms. Absolutely. That's really great. And I know all the men really want to hear this information. And thank you, Beverly, and have a good evening. Okay, you too, Moose. Thank you. dhegeystayaashana qiimaha qaayil halkaad naga dhegeysanaysaan waa raadiyo waxaa qadka ku jira runtii oo aad wax badan aad ka maqasheen minimum wage-ka waa Cabdullaahi Wool. Cabdullaahi, habeen wanaagsan. habeen wanaagsan Muuse, waan ku salaamay iyo inta dhegeysanayso dhan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. wa calaykum assalaam. waxaan la soconaa inaad guul weyn aad gaarteen hadday noqoto dagaalkii aad ugu jirteen minimum wage-kan laga dhigo $15, bal maxaa caawina la qaybsanaysaa? waxaan idinla qaybsanayaa horta guul aad u fiican ayaan gaarnay. mataqaanaa January sanadka soo socda kowdeeda waxaa lagu bilaabayaa nin kastoo shaqo bilaabaya wuxuu ku bilaabayaa $14 gobolkan Ontario aan deganahay. January 18, 2018 markii la gaarana $15 ayaa ugu yaraanaysa. taas waa midii aan u kaabeyn garanaynay 3 sano oo isku xigta oo xiriir ah. waa ku guuleysanay. dawladda hadda dhisan oo Ontario way ogolaatay
weliba intaas waxaa ka daran muuse waxaan kuu sheegayaa shuruucdii shaqaalaha caburin jirtay oo ceegada ku dhiga jirtay kulli waa la baabi'inayaa intii shuruucdii oo cunaha dadka ku dhigaya waa la baabi'inayaa waxaa lagu bedelayaa shuruuc oo favor u ah shaqaalaha oo ay yihiin 6 maalmood oo sick bay days ah 10 maalmood oo emergency leave ah in qofka salaada markii rabo inuu tukado loo ogolaado in lagu xurmeeyo abuse iyo harassment iyo bullying in mataqaanaa laga ilaaliyo shuruucdaas oo awal horey u caburin jirtay shaqaalaha waxaa horey u samaystay kambaniyada waaweynaa samaystay laakiin waa ka adkaanay guul baan gaarnay waana ilaahay ayaan ku mahadinaynaa iyo dadkii nagala shaqeeyey oo ugu horeeyo imaam abubakar masaajidka khaalid bin waliid imaamkiisa mataqaanaa saciid sonna muuse kulow oo adiga raadiyahan aad campaignkaas ilaa markuu bilaawdo ilaa iyo hadda aawaday iyo ragga kula shaqeeyo saaxiibada ah waxaan kaloo aan idiin sheegayaa campaignka waxaa ku jira sayid maxamed xuseen oo dhinaca dumarka qaabishan oo aad iyo aad u abaabushay haweenka Soomaaliyeed oo degan Toronto haddee intaas waa guul aan soo hoynay marka waxaan ka codsanayaa imaamiyada idhaganayo masaajidada kulli waa ay ka qayb galeen oo ugu horeeya imaam abubakar waxaan iyo communityada muxuu ahay Somali community leaders waxaan ka codsanayaa qof kasta inuu waco local MPP-giisa oo Ontario inuu waco oo uga mahad celiyo saboodka ee sabood gareeyeen minimum wage-ka in la gaarsiiyo 15 shaqo shaqaalaha la bedelo maasha allah wax la qiyaasi kara maahan guushaana waa isla soconaynaa hadba heerka ay gaarto waxaan ku leenahay avocado congratulation runtii dagaalka dheer adiga aad soo gashay iyo adigaba dadka kula shaqeeya aad iyo aad baad u mahadsan tahay marka muuse waxa waaye intaasaan idinka codsanayaa dhammaantiin waxa ay dhegaysanaya in local MB-ga la waco loo mahad celiyo saboortka ay saboor gareeyeen minimum wage-ka in la gaarsiiyo $15 maasha allah waa samaynayn hadduu ilaah ka raali noqdo aad iyo aad baan idinkaga mahad celinayaa Jarter Mobile dhegaysto ma la socotaa inuu soo baxay adeeg walwal la'aana oo ay idin hayso Jarter Mobile kaasoo aanan lagugu dallacayn lacag dheeriya xuseen oo sidee bay ku suuragelaysaa yaasiinow Jarter Mobile waxay macaamiisheedu u haysaa qiimo aad u jaban adigoo bixinaya qorshaha $50 bishii inaad hesho adeega talk and text oo ay ku dheer tahay 6 gigabyte oo data ah iyo $25 oo store credit ah markaad ku bixinayso automatic payment hagaag halkee baan ka helayaa adeega noocaasi ah ama sidaa u jaban waxaad ka helaysaa ciwaanka 2032 Western Road Toronto ama ka wac telefoonka 416-241-0008 wakhtiguna waa mid xadidan ballanteennu waa Jarter Mobile Store 2032 Western Road haatanna waxaynu soo gaarnay xilligaynu idiin soo gudbin jirnay war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray warka caawa waxaa si toos ah idinkugu soo tabin doona anigoo ah yaasiin abikar iyo anigoo ah xuseen nuur xaaji kuna soo dhowaada warka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh qodobada radio 1 wararkiis maanta aad ka maqli doontaan waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya oo ka codsaday shacabku inay bixiyaan canshuurta al-shabaab oo weerartay deegaanka kulbiyow guddoomiyihii hore ee degmada wadajir oo ka hor yimid hubka dhigista ay waddo dowladda xilli uu taageeray wasiir ku-xigeenkii hore ee gaashaandhigga qodobadan iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan hadduu eebba ka raalli noqdo aanse ku bilaabo wararka ka imaanaya deegaanka kulbiyow ee gobolka jubbada hoose ayaa sheegaya in maleeshiyo ka tirsan al-shabaab ay xalay saqdii dhexe weerar culus ku qaadeen saldhigyo ay ciidamada kenya ee ka tirsan nabad ilaalinta midooda afrika misom ay uga sugnaayeen deegaankaasi goobjoogayaal ayaa sheegaya in weerarka al-shabaab ay ku qaaday ciidanka kenya ee kulbiyow ay kala kulantay iska caabin ciidamada kenya ayaa la sheegay inay ku jawaabeen madaafiic culus taasoo sababtay in maleeshiyada al-shabaab ay dib u laabtaan ilaa hadda lama oga khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkaasi al-shabaab ay ku qaaday deegaanka kulbiyow horey al-shabaab waxa ay u weerartay deegaanka kulbiyow iyadoo sheegatay inay ku dishay 60 askari oo ka tirsan kenya kadib markii ay soo saartay muuqaal muujinaya weerarka halkaasi ka geysatay xilli sii horreysay dowladda kenya waxa ay sheegtay in ay sii wadi doonto dagaalka ay kula jirto al-shabaab
madaxweynaha kenya uhuru kenyattana mar uu ka qaybgelayay shirkii soomaalida loogu qabtay magaalada london ee dalkaasi ingiriiska waxa uu tilmaamay in ciidamadiisu ay sii joogi doonaan soomaaliya intaa laga tirtirayo kooxda al-shabaab isagoo markaana taageero dhaqaale ka dalbaday beesha caalamka. guddoomiyihii hore ee degmada wadajir ee gobolka banaadir axmed xasan cadow axmed daaci ayaa ka hor yimid hubka dhigista ka socota magaalada muqdisho. axmed ayaa waxa uu sheegay inay wanaagsan tahay hubka dhigista in la sameeyo balse ay marka hore habboonaan lahayd in hubka laga dhigo xarakada al-shabaab awooddoodana la wiiqo. maruu arrintaasi ka hadlayn hadaladiisa waxaa ka mid ahaa fiican tahay hubka dhigis in la sameeyo, laakiin hubka waxaa fiican in cadowga horta laga dhigo awoodda cadowga la wiiqo. awoodda cadowga markii la wiiqo kabacdi suugsaqajaanka iyo bucadda hubka laga dhigo, laakiin hub laga bilaabayo dadkii cadowgu taargagaraynayay oo ama ciidamadii ama siyaasiyiintii, aniga taas sax ila maaha. maqaamkii dowladnimo in la soo celiyo de waan wada rabnaa, laakiin maqaamkii dowladnimo midaanu way dhimaysaa haddii hubka dhigis dhacayso gobolada soomaaliya oo dhan iyo ka dhacdo. ma hal gobol in taargad laga dhigto sax maahan, waaba fiican tahay waxa laga dhigo hayaa ciidankii dowladda maahan dowladi dhexdeeda ayaa hubkiiska dhigo waysa maaha shacabba maaha waxa la aado waa dowladda gudaheed. muqdisho ninku waa ujeedan yahay dowladuna iyadaan xilooda sameeyey, marka ninkooda waxaade kasoo kaco waradi etoobiya dee in lagala xisaabtamo way fiican tahay. xisaabtankiyaaba sidaasa dadkee dadka inaan baylaa looga dhigin cadowga oon dadka hadda qorayaa lagu dilo waaya cadowga asaantoorey ku jirin waayo waxaan ka hadlo wayno. marka in cadowga inya la wiiqoota cadowga dalka laga saaro kabacdi waxa kale loo soo dhigto waayo waxaan ka hadlayno mada maya dowladnimada waad ogtahay oo sida loo soo dhaweeyey madaxweynaha soomaaliduna hadda sideeda waaye, laakiin waxa la sugaya ma ahayn in cadowga saxdooley looga dhigo. waxa la sugayo ma ahayn magara. kaasi waxa uu ahaa guddoomiye hore degmada wadajir axmed xasan cadow axmed daaci. diyaarad la sheegay in ay siday raashiin ay leedahay hay-adda cunnada adduunka ee w f b ayaa ku dhacday degmada garbaharey ee gobolka gedo sida uu ku waramayo guddoomiye ku-xigeenka degmada garbaharey cismaan nuur xaaji. shil baa ka dhacay. shilkana waxay ahayd diyaarad ciladaysan oo weyn oo raashin cunno ah wada ayaa kasoo degtay degmada. hadee diyaaradahana garoonka way ka degi jireen, marka diyaarad ciladaysan ay ahayd waxay kusoo dhufatay dhowr guri baasha kusoo dhufatay, kadibna garoonka ay ku dhacday. hooyin kama dhalanin way goosay qaybo kamid ah waana la damid. waa diyaarad xamuul weyn weye oo raashin waday w ka socotay dad arshaje iyo waxsaas nagu keeni jiray raashin dhuuqluuq ah. marka diyaaradda noocaas ay ahayd waxaana dhihi karnaa diyaarad ciladaysan oo kusoo dhexdhacday ahayd garoonka. diyaaradda horta aad bay ugu degi jirtay garoonka garbaharey maalinka markay ugu yartahay ilaa 6 diyaarood 7 diyaarood ku degi jirtay. wax cilad oo gaari jiray maysan jirin. marka diyaaradani waxay ahayd mid ciladaysan. geedka laalinjahay marka hore baaha kusoo dhuftay ku dhacday, kadib meel darsa ay ku dhacday, baraakay ku dhacday. marka saddexaadna afraadna waxay ku dhacday derbi yar oo garoonka ku hegaarnaa oo diyaaradaha dushiisa mari jireen ay lugaha ku dhufatay ku qaraxday garoonka in ku dhex dhacday. guddoomiye ku-xigeenka degmada garbaharey cismaan nuur xaaji ayuu kaasi ahaa. wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliyeed cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa shacabka soomaaliyeed ka dalbaday inay bixiyaan canshuuraha. bayle ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in shacabka soomaaliyeed ay ka qayb qaataan dib u dhiska ciidanka iyo wadooyinka si loo gaaro horumar. maruu arrintaasi ka hadlayna hadaladiisa waxaa ka mid ahaa diyaar waxaanu nahay waxaad noo keenteen inay nagu aamintaan waxna ku qaban haddaan ku qaban karin inaan iskaga tagno meesha ayaan diyaar u nahay. marka waxaan dadku weyni waxa weeye adeero cashuurta iska bixiya, waan idiin soo baaqi doonaa wixii laydinku talagalay bixiya, ciidanka nala dhisa, wadooyinka nala dhisa. aan iska dayno dawladan aan caadaysanay aan iska dayno. dhowr haysoodana oo lahaybaa ku jirta dawladan dhaafno ma garatay. dawladan inoo noqotay ma garanaysaa yoolka inoo noqotay yool qof walba inuu meel tagu doono soo dawursaday ama hiblaaylay taxi ka wado ayuu doonayaa oo dadka haddaan kaa qaado waxa taa ka sharaf badan waddankaaga joogto oo aad ka shaqaysato aqalkaaga aduleeda usoo hoyato. waa suuro gelinaynaa dadku hadday gacmaha isqabsadaan. waddankeeda khayraad ka buuxa. waxaan kuu sheegaya anu wax weeye khayraadka waddan ka buuxa waddanada afrika isagaa ugu sarreeya. shurtu sidaa weeyaan. waxyaalo badan baana jira oo diidan waddankan inuu cadays ku tago because competition baa adduunka jira. hadda ma garata. marka waxaan ku weenaynaa si beri waxa weeye aan is aamino. kaasi waxa uu ahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle. wasiir ku-xigeenkii gaashaandhigga ee xukuumaddii kumeel gaarka ahayd ee soomaaliya salaad cali jeelle ayaa
taageeray qorshaha amniga caasimadda ee ay waddo dowladda federaalk ah ee soomaaliya isagoo sheegay inay habboon tahay in hubka laga aruuriyo si loo sugo amniga caasimadda. salaad cali jeelle oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi runtii horta howlgalku sidii oo u bilowday dawladduna runtii beelaha waa u sheegto way kala hadasha marka waxaan u arkaa horta horumar wanaagsan maxaa yeelay dilkii waa yaraaday iyo dhibaatadii shacabka lagu hayay muddadii la bilaabay hubka dhigista saadka warqabtaba hadda ramadaanul kariima la galay si wanaagsanaa loo afuray alxamdulilah ayaan leenahay runtii dawladdaanuna 3 arrimood oo hadda horumar la dhihi karo ayay gaartay oo bilow wanaagsana horta kow corruptionkii way la dirirtay oo dakhligii wuu soo kordhay waxay kale mataqaanaa dhaqaalihiina halkaas ayuu soo kordhay markii corruptionkii lala dirira dhaqaalihii baa soo kordhay waxaa kaloo ay gaartay amnigina horumaray ka gaartay oo hubka dhigistaasi ama dadka hubka la wareegeysanaya oo markaasi haddee aan meel ammaan uga shaqayhayn oo markaasi dhibaatada ilaan shabaabka iyo ninka aan hubka si sharciya ku wadan waa isu ekaanayaan maxaa yeelay lama kala yaqaano marka waxaa la dhihi karaa marka taasna horumaray ka samaysay arrimaha marka kaleetood oo mustaqbal wanaagsanna waa soo ifiyey markii ay soo baxda in shacabka magaalada muqdisho ku nool ay nolol iyo xasilooni ay helaan ayaa waajibka saarana sidaa darteed marka qofkii yidhaahda hubka la qaadi maayo muxuu bedil ma heli kariyo oo dadku ay ku noolaadaan marka taas waayana waxa la diidan yaho oo aan cidna aqbali karin inay dadka argagax ay ku noolaadaan. kaasi waxa uu ahaa salaad cali jeelle wasiir ku-xigeenkii gaashaandhigga ee xukuumaddii ku-meel gaarka ahayd. madaxweynaha dowladda maraykanka donald trump ayaa sheegay in maraykanka uu ka baxay heshiiskii caalamiga ah ee bariis ee isbeddelka cimilada ee sanadkii 2015 lagu soo saxeexay dalka faransiiska ayna saxeexeen in ku dhow 200 oo dal. madaxweyne donald trump ayaa go'aankani ku dhawaaqay shalay isagoo fulinaya mid ka mid ah ballamihii ugu waaweynaa oo u qaaday intii uu ku jiray ololihii doorashada. madax badan oo ka tirsan beesha caalamka ayaa dadaal weyn ugu jirta sidii ay u hirgelin lahaayeen heshiiskaasi bariis halka dowladda maraykanka ay go'aan cad ka qaadatay in ay ka baxdo heshiiskaas asaga ah. dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday war wixii dalka iyo dibadda naga soo gaaray warkaasoo idinla socodsanayeen anigoo ah yaasiin abikar iyo xuseen nuur xaaji. tan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo.